haddana wax kala dhacay, you know that bahalkaygii telefoonka ii hayay baabaa iga dhacay. war maxaa soo weeraraya yeah. So caasimaday ku saabsanayd yeah. marka kaarkan ay noo soo baxay, kaarkan anuu raba inaan tuso yeah. ma arkaysiin kaarkan ayaa inoo soo baxay. marka caasimada qasab, haddii kale waynu saasaynu isku leynaynaa, you know, 8 of swords, meaning mindidaasun baynu iska taataagaynaa oo waynu sadalaynaa oo maxaan ku idhaahayay de forever waa 8 weeye somaha, waynu soo laalaabanaa circlekaasun baynu gelgelaynaa. marka caasimada qasab waa in laga saaro meesha imika yeah. So that is that. waa su-aashaynu weydiina caasimada iyo waxay noo soo baxay confirmationkii. waa the high priestess waa qumayo weeye, qumaya idin tiri yeah. intuitionkeena dhegaysta, because waynu ognahay intuitionkeena hadaynu dhegaysano yeah, waynu ognahay caasimada Soomaali ka dhaxayn kartaa inayna noqon karayn meel Soomaali qaar oo ama qabiil qaari ay leeyihiin caasimada inaga dhaxaysa ma noqon karayso. because jigjiga saasay ahayd, caasimada waxay ahayd dad meesha lagu kala badnaado, laakiin de imika waxay ka dhaxaysaa Soomaali galbeed oo dhan soo maaha, Soomaali deegaankaas. So we need to change that. ma fahanteen yeah. caasimadaynu bedelaynaa meel fiican oo de maxaan ku idhaahayay dadku meel qurux badan oo reeraha dhiibayana ka maarmi karayaan yeah. ay dadku si fiican oo nafisa uga shaqayn karayaan waa in la geeyo caasimada. tan kalean rabna inaynu ogaano maanta, because ilaan waa jimcihii ugu horreeyay ya jamaaca. kaarkana de xalimooyin kudaata oo soo iibsada oo kaale aynu akhrine, koobabka koofiga tiigan aynu akhrino, laadhuuga maxaa la yidhaahaa laadhuuga bahashaasna aynu akhrino, wax kastaba waynu akhrinaynaa yeah. namajigiina isticmaala nimankani wax alle waxay ogyihiin baa iska yara, iyagu boqolkii sanaba saasuma isku dulmeeraysanayaan, iyagu jimcahooda masaajidkooda ha tagaan yaa dantooda gaarka ha ka fadhiisadaan, inaguna khumteena ayaynu sii wadaynaa. ma fahanteen okay. maxaynu samaynaa, maxaynu weydiinaa imika caasimadii waynu ka hadalnay, hogaankeena suu yahay imika inuu faras saaran yahay, chariot saaran yahay, uu ordayo, dantiisa uu ordayo, ilaan upside down buu soo baxay. laakiin hadduu sidan noqdo, sida nidaamsan oo tartiiba dadka you know lightka u tuso, dabka ugu shido, waxaa la yidhahaa toosh iyo dacaag yeah. dadkuna jarkana iska tuurayaan iyo emotionalkan iyo badana isku tuurayaan, ha iska daayaan. shacabkaan ka hadlaya haddana dadku wadanku hagaagaya caasimadooda meel inaga dhaxaysa laga dhigo. ta ugu dambeysay ina qabsatay maalimahan waxa weeye maxaan ku idhaahayay interceptionkii uu ku sameeyey Mareexaan. so Mareexaan horta magaciisa ma idin micneeya, video kalaan soo dhigay meesha oo siyaasadda ka hadlaya ayaan micneeyay. waxaa magaciisa Mareexaan waxa la yidhahaa Harari bay ka timid, Hararna waa xariib Soomaali original berigi Axmed Gure iyo Awdal state markii la lahaa waxa weeye saint, waa dalkii Holylandkii berigaynu hayno. ilaa inagu Holyland baynu leenahay, Harar iyo meelaha markaynu maamuleynay. idinkuma Awdal meel fiyaad u malaysaan yeah. state euro imika Soomaali degantahay baad u malaysaan miya? war sidaasna sheekadu ma ahayn, dib u laabta. okay. marka Mareexaan waxaa la yidhaahaa, magaca Mareexaan macnihiisu waa af Xareeri ama Xarar
guraaga gu waa time waa waqti raagana waa waxay ku saabsan tahay xidig meerayaasha so xidigiska iyo de meerayaasha marka la akhriyo raaga waa Saturn waa the black raging planet qabiilka guraaga marka sheekadaas waxaan ku keenay waqtigaas out of state xarartan bay jirin so dadkaas xariiriyin bay ahaayeen Sophia's originals magaca maraaxa iyo mareexa